bandhig aqooneed la kaga waday xarunta la xanaaneeyo da'yartii wayba ku dhiday magaalada Gaalkacyo warkuwan boos magaalada Gaalkacyo sanin ku taray Xuseen Ahmed Nadaari dugsiga aqoonta ee Daarul Xanaan ayaa si rasmi ah loo daafuray waxaana munaasabada ka soo qayb galay madax iyo marti sharaf kala duwan General Yaasiin Cumar Dheere iyo Sahra Cali Cismaan oo ka hadlayay magaca golaha danwadaag waxa ay ka sheekay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha deyrkaani ugu horeeyay dhamaantii waa ka dheregsantihiin mashaariic fara badan ayaa golaha kali ka fuliyay deegaamada gobolka Bari iyo Karkaar golaha danwadaag waa urur samafal ah oo ay ku bahoobeen dhalinyaro u dhalatay deegaamada tan gobolka Karkaar iyo gobolka Bari oo isugu jira rag iyo dumar dhalinyaradaas oo isu xilqaamay in ay ka qayb qaataan horumarka deegaamadooda hadday noqon lahayd xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga biyaha xagga wadooyinka intaba أنت دافر كذا ما أنت كوي جاي حالة ديسكشن تقول بالله بالله مركز تمشروع بان هذينا سانو كل واحد رجينا مشان أسعرنا سيد دار حنان وتبع أبو شيء ستي نوسو دويسي نوقف ناتي هوش النور قبطي أنت قبني يقول بقوحس كذا أي راعي إنه كود ما تنا أي راعي maamulaha guud ee iskuulka Sheekh Cabdiqaadir Yaasiin oo u mahad celiyay golaha danwadaag ayaa isna dhankiisa ka qaatay kelmadiisa toonay meel kasta oo maray hay'adihii wax dhisayay waxay dhamaan ugu yiraahdeen hawshan community-ga iska leh ma aha hawl anagu aan leenahay fasalada anaga noo yaal hadii loo baahay waxaan aad ugu faraxsanahay hawsha aan runtii aan ku daalay waan ku hawshoonay in danwadaag ay samaysay waana wax weyn oo la ilaawana oo jiri doona taariikhdu waxa weeye ay waxa weeye wax ka qori doonto waxaan rajaynayaa baahiyaadka jira oo kale in wax ka qaban doonto wixii doorkooda ah waa urur waxa weeye aan faa'iido doonahayn laakiin samafala ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre Caato aan uga mahad celinayaa maamulka dugsiga Daarul Xanaan mudada dheer la soo jiitamayay haddana soo gaarsiiyay meel ay bulshadu ka fahanto ardayda badan ka qalin jabiso umaduna ay si fiican ay indhaha ugu soo eegto waxaan dareemayaa insha Allah hadduu sidaan ku sii socdo inuu noqon doono national ama heer qaran ilaa dawladda Soomaaliya ay ka soo qayb gasho Abishiin Maxamuud Yuusuf raadiyaha telefishinka